ها قيارتا soo dhawaad muuqaalkeen maanta wuxuu ku bilaabanayaa laba nin ayaa waxaa loo soo diray inay soo baaraan haradan aadka u weyn waxayna wadeen labadan nin doon mid kamid ah ayaa wuxuu xiranayo dharka dabaasha loogu talagalay wuxuuna hore u gali doonaa haradii wuxuu u dhaarici doonaa dhanka hoose ee harada laakiinse wuxuu arki doonaa wax iska bacdi god aad u weyn wuxuu ku soo dhawaad doonaa godka asigoo isdhaxaya godka wax ku jiro soo fiiri laakiin hal mar ayaa waxa ku soo buudi doono bahal aad u weyn ninkii wuu ka soo carari doonaa bahalka wuu ka daba imaan doonaa wuuna qabsan doonaa wuxuu ahay nafal caari wuxuuna isdhahay ilaahu ma ka baxsati laakiin waxa arkay saaxiibkiisa kale booliiska ahay wuxuuna u tuurayaa qalab oo ku soo badbaadi asiga laakiin markuu soo badbaadiyo oo soo dhigo doonta gudaheeda wuxuu arki doonaa ninkan oo ka maqan qaybta gadaal oo dhan isla markiina nafta ay ka bixi doonto uuna dhimo doonaa waxa meedkiisa la keeni doonaa qolooyinka wax baaro waxaana baari doonto gabar biologist ah waxayna ogaan doontaa inuu cunay bahal aad u weyn bahalkaani oo yahay bahal aad u weyn waxayna soo bandhigi doontaa ilko ku reebay ninkii askariga ahaa ee la cunay gabartii kayleheeda iyo asxaabteeda waxay soo qaadan doonaan doon waxaana la socdeen qaar kamid ah booliiska iyo asxaabta wiilkii la cunay waxayna isla markii badda ku tuura doonaan fiiladaas oo u sahlayso inay ku arkaan bahalka meeshuu joogiyo isla markiina laba la socota ayaa waxay qaadan doonto dharka dabaasha waxayna geli doonaan biyihii nimankii markay biyaha hoos u galaan waxay arki doonaan xayawaano fara badan oo ku jiro meesha xayawaanadaas oo ah kuwa la cunay laakiin wax yariska bacdi ah waxaa la jiidanayaa doonta waxaana laga jiidayaa fiiladii ay ku tuureen ayka badda laakiin waxaa jiidaya wax aad u xoog badan waxaana dhaqaaqayo doontii waxa ka dhacaysa doontii Kylie mid kamid ah booliiskii ayaa wuxuu jiri doono fiilada qof kasta wuxuu kusoo noqon doontaa doonta ninkii booliiska ah wuxuu arki doonaa fiilada ee tuurteen markuu soo qowmaanka fiiladiina isla markii waxa cunayo bahal aad u weyn sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax iska ka soo baxsanayaan biyihii isla markii wixii ka tashanayeen kalka ku xig wixii sameynayaan laakiin waxa soo weerarayo isla markii bahalka loo yaqaano biirkan markuu soo weeraro way u baneynayaan laakiin wuxuu tagi doonaa harada afkeeda biirka isla markiina waxa soo bixi doono bahal aad u weyn oo ah nyaxaas wuxuuna cuni doonaa biirkii qof kasta oo eega ka tirsan uu isku nux doonaa waxayna la yaabayaan yaxaaska weyninkiisa waxayna ogaanayaan maanta oo dhan wax dhibaya inuu yahay yaxaas aad u weyn booliiskii oo yaaban ayaa wuxuu iskaga tegayo halkaas maalintii ku xigta waxa imaanayo Kylie iyo Jack waxaana la socday oo saddexeeyay nin booliis ah waxayna itoombirka ku arkayaan naag waayeel ah naagtan ayaa waxay waday sac laakiinse ma yaqaanaan saca meesha u wado naagtan isla markii saca ay wax u geynaysaa yaxaaskii ayaa saca ku cunayo meeshiisa booliiskii waxay imaanayaan guriga naagta waayeesha ah waxayna weydii doonaa su'aalo aad u fara badan naagta waayeesha ayaa wax ugu jawaabi doonto su'aalahaas waxayna ku leeyihiin maxaa ku kalifay inaan yaxaaska siisi saca waxayna leedahay maalin kasta waxaa siiya yaxaaskan hal saca haddaana siinin wuu isoo weeraraya wuxuuna iga cunayaa sacyaasha kale xitaa nafteeda waxa ku jirto halis inuu i cuno waxayna leedahay waxa uu weynaaday yaxaaska waa maalin kasta aa siiyo hal xabo oo saca ah booliiskii naagta waxay weydii doonaan aabay ninkaaga laakiin waxay u sheegi doontaa sheeko xanuun badan waxayna kuri doontaa ninkaygii wuu dhintay wuxuuna dhintay sanado ka hor waxayna leedahay waxaa cunay yaxaaska wuxuu isku dayay inuu u diido sac laakiinse isla maalintii ku xigtay wuxuu cunay asiga wuuna soo weeraray waxayna ku leedahay sababta ugu cabsood hadda waa sidaas inuu isoo weeraro oo aniga i cuno mana rabo aniga inaad dhinto waxaan rabaa inaad sii noolaado naagtii waxay ku leedahay maalin walba yaxaaskan wuxuu cunaa haradan dad soo booqdo wuxuuna kala bar dadkii laayay soo booqda haradan booliiskii arrintan wuu ka yaabayaa waxayna dejinayaan qorshe aad u weyn ay kusoo qabanayaan yaxaaska wuxuuna ogaanayaan yaxaaska cuntada ugu jecel yahay inay tahday lo'da booliiskii waxay soo qaadanayaan helicopter waxayna usoo dhawaanaysaa helicopterka harada waxaa isla markii lasii daynayaa mid kamid ah booliiska wuxuuna watay qalabka loogu talagalay biyaha wuxuuna quusayaa biyihii ninkii booliiska ahaa isla markii wuxuu soo weynayaa yaxaaska wuxuuna u sheegayaa naagtii helicopterka ku waday inuu halkan joogin yaxaas laakiin ninkii booliiska ahaa ayaa wuxuu dareemayo inuu gadaashiisa taagan yihiin walax wuxuuna dareemayaa gadaashiisa inuu joogin yaxaaskii aad ku weynaa yaxaaska ayaa ninkan aad ugu dhawaay wuxuuna ogaanayaa inuuna ka carari karin yaxaaskan wuxuuna ka codsanayaa gabartii waday helicopterka inay helicopterkooda kiciso waxaan usoo tuuraysaa doon isla markii yaxaaskii wuu boojoobaya wuxuuna kusoo cararayaa ninkii helicopterka yaxaaskii wuxuu qabsanayaa helicopterka afkeeda wuxuuna halis gelinayaa helicopterka laakiin yaxaaska meeshuu qabsaday waxay ahayd qori ku xiran helicopterka waxayna ku ridayaan xabado yaxaaskii wuu ka foqayaa helicopterkii ugu dambeyntii Kylie iyo ninkii booliiska ahaa waxay u sheegi doonaan qolooyinka kale ee booliiska ahaa inayna macquul ahayn inay soo qabtaan yaxaaskaas mushinkoodan meesha ku dhamaaday laakiin Jack ayaa wuxuu keeni doona fikir ka duwan isla waqtigaas waxay kusoo xiri doonaan helicopter loodaas ay waxay ka soo raarici doonaan helicopterka ayagoo isla u dhaweeya markuu soo daba kacana yaxaaska u soo bixiyo banaankaasna ku dila waxay diyaarsanayaan hubkooda laakiin yaxaaska wuxuu ahaa mid aad u aqli badan markii loo dhaweeyo looda oo loo geliyo harada qayb kamid ah looda yaxaaskii ma soo bixinin wuxuuna ahaa mid ku gamban dhulka hoostiisa waxay riisa eeka weyna hijabeen laakiin ninkii helicopterka wada ayaa wuxuu arkayo yaxaaskii oo kusoo dhawaanaya looda helicopterkiina waxay u soconaysaa horay si ay yaxaaska usoo bixiso biyaha ninkii helicopterka wada intoona u bixin looda banaanka ayaa waxa kusoo boodayo yaxaaska wuxuu ahaa mid
aad u culus wuxuuna ahay mid xoog badan wuxuuna helicopterkii dhan ka dhigayaa mid qalqashay wuxuuna soo ridayaa oo ku soo ridayaa biyaha helicopterkii wuxuu ku qalibmaysaa biyaha laakiin ninkii waday helicopterka uu ka badbaadaya wuxuuna u soo baxayaa helicopterka korkeeda ninkii helicopterka waday wuxuu ku xabisan yahay oona ka soo bixi karin biyaha dhexdooda mid askariya ayaa wuxuu is leeyahay u dhow biyaha laakiin isla markii waxa hoostiis ku jira naxaaska ayaa ku soo boodaya wuxuuna la gafayaa afkiisa naxaaskii isla markii wuxuu bilaabayaa inuu bursado ninkii askariga ahaa wuxuuna u bursanayaa booliiska kale meesha joogeen wuxuu fuulayaa gaariga kuwii booliiska ahayna way kala fakanayaan waxayna kacsanayaan gaariga laakiin gaarigii waxa ka dhacayso Kaylee naxaaska wuxuu soo weerari doonaa Kaylee wuxuuna ku dhufan doonaa dibka waxayna ku dhici doontaa haradii biyaha ku jireen naxaaskii wuxuu ka dawadegi doonaa Kaylee oo ku jirtay biyaha Kaylee waxay gashay biyaha hoostooda waxaana ka qabsanayso maradeeda bir naxaaskii ayaa si toos ah soo weerarayo Kaylee wuxuuna kala furanayaa afkiisa sida uu cuno Kaylee ay u gambinayso waxayna ugu dhuumanaysaa birar jajaban iyo geed meesha yaalay naxaaskii ma awoodo inuu cuno Kaylee wuxuuna afka gashanayaa birarkii iyo geedkii Kaylee waxay helaysaa jaanis ay ku soo baxsato waxayna ka soo baxsanaysaa naxaaska waxay u imaanaysaa Kaylee ninkii askariga ahaa oo saarnay helicopterka waxayna dul fuulayaan ninkii askariga ahaa iyo ida helicopterka waxay riiska bacdi waxa imaanayo naxaaska wuxuuna ku soo boodayaa helicopterkii ay wuxuu ka soo galayaa daaqada laakiin waxa ka boodaya helicopterkii ninkii askariga ahaa iyo Kaylee naxaaskii wuxuu dhex galayaa helicopterka wuxuuna ku naqanayaa halkaas mid ku xayiran oo aan ka bixi karin helicopterka naxaaska wuxuu isku dayayaa inuu ka baxsado helicopterka laakiin kama baxsan karo waxay ugu jirtaa afka ka soo baxaya Kaylee iyo ninkii askariga ahaa waxayna soo gaari doonaan qoladii booliiska ahaa ee joogay banaanka naxaaskii intuu rafanayay wuxuu soo baxaya banaanka waxaana dili doono askartii isla markiina wuxuu ku sameyn doonaan baaritaan filimkeena dhamaadkiisa waxaa arkaynaa duqdii waayeesheeda oo ku raaxaysanayso haradii ku jireen biyaha haddana waxay dareemaysaa xurnimo filimkeena maanta wuxuu ku egyahay halkaas intaan ku kulmayno film nuucan camal waxaan kaaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu